بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الأمي سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan kasoo salaamayaa dhammaan tolkay boqortooyada ciise weyne meel kastoo ka kala degan yihiin adduunka dacaladiisa, erooliya caananuug, wiiliya gabdho, sheekh iyo shariifba. ugu horeyn ilaahay subxaanahu watacaala waxaan inoo weydiinayaa intay naga bugto in ilaahay noo caafiyo, intay naga geeriyooto in ilaahay u naxariisto, inta dhibanahan ilaahay dhibtiya tacadiga ilaahay ka saaro. waxaan rabaa inaan idinla wadaago aragtidayda ku saabsan shirka wadatashiga danta beelweynta ciise ee ka socda magaalada Ishaaca. shirkaasi sida qura uu ku noqonayo mid lagu guuleystay oo midho dhaliya waa in lagu dhaqaaqa laba qodob. qodobka u horeeya 3 buu kala baxayaa maadaama uu ka hadlayo shay mida. qodobka koobaad xarafka e waa in laga hadlaa sidii dagaalada galbeedka city ka socda loo soo afjari lahaa. qodobka koobaad xarafka b waa in dadkii kasoo barakacay ee dagaaladu ay aafeeyeen iyo kuwii khasaaraha badan ay gaareen ee hadda magaalooyinka mataqaanaa kale ku sadaqaysanaya aan weli meel la dejin, shiracna loo xidhin, in xal loo helo sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa oo magaalooyinkooda lagu celin lahaa. inta taa xalkeeda la wado ee lagu jirana in shiracyo loo xidho oo meel la dejiyo oo raashin la siiyo. isla qodobkii koobaad baan ku jirnaa xarafka c, in raggii shirqoolay dagaalada galbeedka ka socda ee khasaaraha badan iyo culayska badan ugu haya iyo ciise meel kasta uu degan yahay dhibaatooyinka ku haysta iyo gumeystaha mataqaanaa sokeeye ah, cadowga sokeeye ah ee la dagaalamaya ee ugaarsanaya ciisaha kooga geesiga ah ee xaqa ciisaha u raadiya in lala xisaabtamo. qodobka labaadina wuxuu noqonayaa lafdhabar in ganda la sameeyo. ganda haddii la sameynayana waa inay noqdaa ganda madax bannaan, maaha ganda ku xidhan dowlad, maaha ganda ku xidhan boqortooyo, maaha ganda ku xidhan nin siyaasiya. ganda waxaan u baahannahay madax bannaan ay reer kaste ay iska soo dhex saaraan kooga aqoonyaanka ah, kooga xeryaqaanka ah, kooga waxgaradka ah iyo kooga u daacadsan, maadaama loo baahan yahay maanta xaaladan aan ku jirnay cakiran ee adduunkuna la yaaba yahay ragga xallin kara ee mar kastaba loo ordi jiray ee xeerkana lafdhabar u ah in dib loo soo celiyay waa laga maarmaan. haddii labada qodob la yeeli waayo waxay ka dhigan tahay shirkani waxa weeye waa shir raggan ciisaha mataqaana dhibaatadooda shirqoolay culayska ku haya raggii unbaa shirkan iska samaystay si ay adduunka u tusaan inay dadkii mideeyeen, dadkii isku keeneen, ay kulmiyeen, waa ay arka hilib iyo geel lagu cuno sida u helaan maxaan ku rahdaa cilmi kororsi ama cilmi dharar ay kusii biirsadaan mataqaanaa kuraasida ay sii fadhiyaan, ay usii joogaan meeshii, ayna usii gumaystaan. sidii aan tuhumaynay raggii unbaa iska watay shirkaasi markaa wuxuu noqon doonaa mid fashilma haddii intaa laga hadli waayo iyo waxyaalo badan oo ciise hadan u ah. maxaa loo sameynayaa? maxaa sidaas aan u leeyahay? waxa weeye xeerkan markii la sameynaya markaa taariikh dib u eegtiin bilaa gande ma socon karo, waayo ganduhu waa xeer ilaaliyo wey, waana laga maarmaan. marka ciisow maaweeladan beenta ah, dhalanteedkan aad ku jirtaan iyo xumaantan ni gashay ee mataqaanaa kiinii dulmiga waday aad ku difaacaysaan waa inaad ka baxdaan, haddii kalena xaaladiinu way kasii darnaan sida tan.